gabadhan waxay sheekh hadii aan meherkay ka dhigto xoolo sida geela oo kale horta ma ii ansaxayaa haduu ii ansaxana qiimaha geela haduu waa hore ahaa maxaan ku qiimeeyaa haduu geelu hoos u dhaco iyo haduu geelu kor qiimihiisu aadaba qiimaha baa meherkay lagu siinayaa alxamdulillah horta geeli ari waad ka dhigan kartaa hadaa rabta digaagna waad ka dhigan kartaa waxa adigu doonto haddii nabigu ninku yiri iltamis walow khaataman min xadiid faraati bir abahan noqdee waxuu keen waxa la leeyahay wixii xoolo nool iyo mood waxa la leeyahay waxaad ku heshiisaan baad meel ka dhigan kartaa yaraan iyo badnaan inaan la badin baa fiican laakiin haddaad ku heshiisaan waa taytum xidaahunna qintaara geel iyo xoolo nool hadduu ahaa maxaa la igu qiimeyn maalintaad meherkaaga qaadanayso suuqa wuxuu ka joogaad leedahay nasiibka hadduu qaali korku ugu kaco iyo hadduu hoos joogaba qiimo go-an ma jiro adigu geel baad leedahay haddaad geel adu ka dhigatay maalinkaad qaadanayso haddaad wada qaadanaysana waa lagu wada qiimeyn haddaad tiraahda 10kii geel ahaa hal mid baan rabaana hal mid qiimihii baa lagu siin 9ka kale geel bay ku ahaan waxaad rabtana waad cafin kartaa waxaad rabtana xooluhu meesha ay qiimaha ay joogaan haddayna magaaladu suuq lahayn suuqa u dhow baa lagu qiimeyn hadda saasaad u qiimeyn qiimo kaloo go-an ma jiro maalinkaad kala qaadanaysaan qiimaha suuqa waad ku kala baxaysaan idinku haddaad qiimo gaara ku heshiisaan waad samayn kartaa isagoo suuqa 1,000 ka jooga haddaad 2,000 ku heshiisaan ama isagoo 100,000 jooga 5,000 ku heshiisaan idinka khiyaaro leh soo adigu badeecadaada waxaad kaba geli kartid oo xoolahaagii qiimaha waxaad ku garan kartaa qiimihii suuqa haddii lagu sheegay ma anfacaad dhahdo waayo sug daysaa lagu leeyahay geel hadduu soo xaray haddaad tiraahdo waa lagu soo xaray billahi tawfiiq جزاه الله خيرا.